habka maamulka Soomaaliya wuxuu ku saleysan yahay qodobka 49aad ee dastuurka Soomaaliya. Gobol gooni isu taagi kara ma jiro inta uu gobol kale uu ku biirayo. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maamulaysa, waxaana waajib ku ah gobolkaas inuu ku biiro gobol kale ama dowlad xubin ka ah dowladda federaalka muddo 2 sano gudahooda. Magaalooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliya: magaalada koowaad waa Muqdisho, Hargeysa, Boosaaso, Gaalkacyo, Laascaanood, Marka, Jamaame, Kismaayo, Baydhabo, Burco, Afgooye, Beledweyne, Qoryooley, Garowe, Jowhar, Baardheere, Qardho iyo Boorama. Intii uusan dhicin dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya, waxay u qaybsaneyd maamul ahaan 18 gobol. Burburkii kadib waxaa soo baxay maamulo beeleedyo. Waxay Soomaaliya ahayd ka hor 1969 intii uusan dhicin inqilaabkii dowladdii rayidka ahayd 8 gobol oo kaliya. Gacaanka wuxuu ka dhigay 18 gobol, kuwaas oo kala ah Awdal, Bakool, Banaadir, Bari, Baay, Galgaduud, Gedo, Hiiraan, Jubbada Dhexe, Jubbada Hoose, Mudug, Nugaal, Sanaag, Shabeellada Dhexe, Shabeellada Hoose, Sool, Togdheer, Waqooyi Galbeed. Waxaa sameysmay maamul beeleedyo ka dhashay dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya, waxaana ka mid ahaa Waqooyiga Soomaaliya oo ku dhawaaqan madax bannaani hal dhinac ah, Somaliland, taasoo ka dhigan 3 gobol sida Awdal, Waqooyi Galbeed, Togdheer iyo qaybo ka mid ah Sool iyo Sanaag oo ay kula dagaalameen Puntland. Sidaa daraaddeed, Somaliland waxay gobolladii u sii qaybisay Awdal, Cayn, Gibiley, Hawd, Maroodijeex, Wadweyne, Salal iyo Saraar. Waxaa sidaas oo kale Puntland sameysmay gobollo iyadoo kaga daysatay Somaliland, kuwaasoo kala ah Bari, Gardafuuy, Highland, Karkaar, Mudug iyo Nugaal. Kasakow inay sameysantay Puntland, haddana waxay aqoonsan tahay dastuurka Soomaaliya kaasoo dhigaya Soomaaliya inay tahay 18 gobol, kaasoo waxba kama jiraan ka dhigaya gobollada ay magacowday. Habka maamul goboleedyada: habka federaalka ee lagu muransan yahay Soomaaliya wuxuu dalka u qaybiyay sidan soo socoto. Soomaaliya wuxuu federaalka u qaybiyay Puntland, Galmudug, Somaliland, Khaatumo State, Jubbaland, Koonfur Galbeed Soomaaliya, Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Qodobka 49aad ee dastuurka Soomaaliya wuxuu qorayaa 2 gobol iyo wixii ka badan baa samaysan kara maamul ka tirsan dowladda Soomaaliya. Waxay durbadiiba ka dhalatay caqabad ku aadan xuduudaha maamulada.